sida ula socotaanba dowladda Puntland waxay qaybqaabisay tartankii shanaad ee ciyaaraha gobolada ee Puntland ciyaarahaas oo lagu qabtay magaalada madaxda Puntland ee Garowe garoonka weyn ee caalamiga ee loo yaqaano Mirawaare hadaba galabta waxay ciyaartii ugu dambeysay ee kubadda cagta waxaan isku haleelay labada gobol ee kala ah gobolka Sool iyo gobolka Bari ee loo yaqaano Boosaaso ciyaartaas oo ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan dadweyne aad u fara badan ay ka soo qayb galeen daba ciyaartaas ayaa waxay ku bilaabatay jawi aad iyo aad u fiican inkastoo ciyaartaasi ay guushii ay raacday gobolka Bari oo soo bandhigay ciyaar ay dadweynihii ay aad iyo aad u jecleysteen ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 2-0 ay ku badisay gobolka Bari halkaasna koobka ay u qaadatay inkastoo sanadkii hore oo ay qaadatay gobolka Sool balse gobolka Bari ayaa yiri sanadkan aniga ayaa qaadanaya ciyaartaas oo ahayd ciyaar dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen ciyaartaasi waxa ka soo qayb galay wasiirka isboortiga ee dowladda Puntland Maxamed Nuur Xirsi sidoo kale waxa ka soo qayb galay wasiir dowlaha dowladda wanaaga ee Puntland Maxamed Faarax Ciise Gaashaan wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Saynab Ugaas Yaasiin waxa kaloo halkaas ku sugnaa ciyaartooydeeni xulka qaranka ee Soomaaliya Maxamed Xaaji iyo Amaan sidoo kale waxa ku sugnaa xulkii qaranka ee kubadda kolayga iyo naadiga horseed gabadha la yiraahdo Sucaad iyo Safiyo oo dhammaantood ka kala yimi halka iyo North America iyo Europe ciyaarahaas ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay garoonka weyn ee Mirawaare ciyaartaasi oo ahayd ciyaar si aad iyo aad u xiiso badneed ciyaartaasi waxa 2-0 ku badiyay gobolka Bari Boosaaso halkaana koobkii ku qaatay sidoo kale halka nabadgelyada waxa sugayay taliyaha qaybta gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Abshir Faarax oo loo yaqaano Qaqaa waanigu ah Sakariya Aadan Universal TV qaybtiisa North America Garowe Puntland